runtii waa mahadsan tahay muddo 10 sano ayaan deganahay degmada Hodan runtii waa degmo aad u fiican aan isleeyahay aniga hal heesan sameeyay oo ah Hodan waxay qayb ka tahay horumarkaaga 10 sano aan deganaa Hodan wax badan iska bedelay gaar ahaan 5 sano ugu dambeeyay degmada waxa aad ugu soo badanayay interlog inta badan waxa laga reestay buskii iyo dhiiqadii iyo magaaladii marka fiirisid degmada Hodan hadda waxaan ka soo tagay xaafad fog intaan soo lugeynayo dhan wax buu sama arkin magaalo nadiif ah oo la jaan qaadaysa standardka caalamiga ah gudoomiyuhuna halhiiskiisa wuxuu ahaa 2030 inay degmada Hodan dhan wax ciida laga waayo waana wax sax ah marka waa ugu faraxsanahay waana degmo runtii aan isleeyahay aan ku faraxsanahay inaan deganahay haddana aan ku faraxsanahay horumarkeeda maalin kastaba interlog iyo jid cusub in la dhisayo runtii wax badan iga dhigan tahay laba nooc waaye midna waxay saameynaysaa nadaafadii degmada iyo inay soo jiidasho ganacsi badan maxaa yeelay wada kasta interlog hadii la saaro waxa sameysmay ganacsi cusub inuu abuurmo ganacsigaas keenaya inuu dhaqaale fara badan abuuro marka tan kale waxay ka qayb qaadanaysaa amnigi oo meesha haduu interlog iyo nabad timaado inta badan tuugadii iyo wixii wax dhici jiray waa ka reysanaya marka amni ahaan waa uga qayb qaadanay horumar ahaan waa uga qayb qaadanay nadaafad ahaan iyo bilic ahaan waa uga qayb qaadanaysa runtii degmooyinka kale inay tusaale u noqoto degmadan Hodan inta badan degmadan Hodan marka tartanada fiirisid marka sanad kasta leemanka koobaad ay ka soo gashaa sababta ay ku soo gashaan waa wax qabadka degmadan san haday tahay qof abaal marisi lahayn ma jirto fariimaha kale aan gudoomiyaasha degmooyinka la wadaagi lahaa waxa kamid ah inay degmada Hodan ku daydaan waxa fiican waa la iskaga daydaa waxa xumaantana la iskaga madayo runtii gobolka Banaadir waxaan ugu baaqayaa in horumarka degmada qayb libaax leh jidadka qaarkood degmada burbursan jira inkastoo jidadkii ay aad u yaryihiin degmada Hodan burbursan laakiin in horumarka gobolka Banaadir siiba degmada Hodan loo qoodeynayo in si gooni ah isku xilqaamaan maadaama degmada Hodan ay ayadu iskeedu dadkan inta badan interlogyadan dawlad ma dhisin shacabka degmada dhistay marka shacabka degmada maadaama ay dhisteen waa inuu gobolka Banaadir mudnaan gooni siiyo degmada runtii wax weyn waaye degmada Hodan waxay kamid tahay degmooyinka udub dhaxaadka oo horumarka degmada tusaale ahaan marka airportka Muqdisho ka soo baxdida ogaanaysa qiblada Muqdisho iyo quruxda Muqdisho dhan waa degmada Hodan marka yaani muhiimada u tahay shacabka degmada muhiimada u tahay gobolka Banaadir muhiimada u tahay dadka soo booqanaya maxaa yeelay degmo kastaba waxay leedahay astaamo gooni ah xilliga Ramadaanka degmada Hodan waxa lagu qabinayaa afur wadareedyo ka duwan sida adduunyada loo afuro marka runtii degmada Hodan waa degmo la jaan qaadaysa magaalooyinka casriga ah